kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriidhay halkan waa telefishinka Universal studiisa magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada caawa barnaamijkana waxa ka mid ah berito baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ka kulmi doonaan arinta sargaalka ONLF ee Cabdikariin Qalbi Dhagax hadaba maxay noqon kartaa kulanka baarlamaanka Soomaaliya maxaa ka soo bixi kara falanqeyn arintaasi ku aadan ayaan idinku haya barnaamijka dabagalka wararka magaalada Muqdisho maanta waxa ka furmay shir lagaga tashanayay dib u eegista sharciga socdaalka ee jinsiyadaha dalka Soomaaliya kaasi oo tan iyo 60kii dib u eegis lagu sameynayo muhiimad inta lag ay shirkaasi u leeyahay in laga shiro oo dib u eegis lagu sameeyo sharciga socdaalka ee jinsiyadaha dalka Soomaaliya waraysiyo iyo codad ayaan idinkaga soo tabin doonaa qodobkaasi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu magaalada Hargeysa maanta wariyaasha u jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan ugu hadlay oo xisbigiisa talada haya ee kulmiya oo doorashooyinka Soomaaliland ku aadan khudbadaasi barnaamijka dabagalka wararka ayaan idinku soo gudbinaya dhacdooyinka iyo kuwa kale u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararka magacaygu waa Cabdicasiis Ibrahim Axmed barnaamijkuna waa dabagalka wararka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aan ku bilaabo berito maalinta ay ku beegan tahay oo Arbaca waxa ay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ka shiri doonaan arinta sargaalka jabhadda ONLF ee Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaana xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya berito si weyn ay uga wada hadli doonaan arinta ku aadan sargaalka ONLF in badan oo la hadalhayay mar baarlamaanka ay kulmeenna koram la'aan ayaa lagu kala tagay qodobkaasi oo waa laga hadli waayay aqalka sarada dib ayay u dhigeen arrimahaasi oo cod ayay geliyeen laakiin golaha shacabka berita ayaa laga filayaa in arintaasi si weyn ay u jexjeexaan hadaba maxay noqon kartaa hadalhaynta iyo berita waxyaabaha ka soo bixi doona baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya arrimahaasi waxa inala faaqidaya siyaasiga علي محمود سياد علي سيكو oo horay ugu soo noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo mid noqday waxa uu la sugan yahay stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho barnaamijka dabagalka wararka ayuuna igala qayb galaya علي سيكو علي سيكو soo dhaw telefishinka Universal xaaladahan oo kale marka ay taagan yihiin maxaa la gudboon baarlamaanka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdicasiis okay waa mahadsan tahay waa dhawahay magacayguna waa cali maxamuud faarax meesha siyaad waa faarax waa mahadsan tahay arrinkaas qalbi dhagax iyo baarlamaanka iyo crisis-ka ka taagan maalmahan iyo asbuucyadanba waa la maqlayay baarlamaankana waad ogto maalin hore shirkay isugu yimaadeen kooramkii baa buuxsami waayey aqalka sarena maanta iyaguna shalay iyaguna meel fiican bay wax dhigeen oo dee sidii saxda ahayd inay mareen aan arkaynaa maxaa yeelay mooshin iyo howlihiisa iyo dee baarlamaanka ayaan isleenahay isaga xaggiisa loo eegayaa markaan ka soo gudbo berri anugu waxaan isleeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed loo hanweynaa aadna loogu hanweyn yahay weli aan rajaynayo inay meel fiican wax dhigi doonaan waxa la gudboon waxa weeye inay ciddii ay shaqada u xil saarteen ay hawsha u direen waddankan mas'uuliyadiisa fulineed iyo midiisa siyaasadeed ay saareen inay barataaraan oo ay mowqifkay qaateen iyagoo dhinacyo badan eegaya ku taageeraan wixii dhaliilaha oo la qabo shakhsiyaad aan ognahay inay qabaanna in loo xaliyo si hoose oo laga wada hadlo dawladnimo xafiisyada looga wada hadlo laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahay ee dusha ka daawanaya runtii isbedelka soo u dhacayna ku faraxsanaa sida hadda wax u socdaana ku faraxsan aysan niyadna jebin wixii ay baarlamaanka ugu hambaliyayeen oo uga fadhiyeen oo ay lahaayeen isbedelkiisa u sameeyeen
hor u socodkana u wadi doonaanna inay ka dhabeeyaanaan rajaynaynaa iyadaana ka sugaynaa maxaa yeelay dowladihii soomaaliya soo maray oo aniga aan ka soo midka ahaa waxaa ragaadiye oo ugu badan waxay ahayd baarlamaan mooshin la taagan baarlamaan mooshin la taaganina ummadda soomaaliyeed wuxuu ku noqday nabar sidaa aawadeed waxaan rajaynaynaa baarlamaanka dhalinyarada iyo haweenka u badan isbeddelkii aan ogeyn xanuunkii ummaddan hayey isbeddelka ka sameeyey ka dulqaaday saa ogeed loogu dabaaldegay doorashadii iyo nidaamkii ay la yimaadeen iyo dadkay doorteen inay berrina farxad kale ummadda soomaaliyeed gelin doonaan xukuumaddoodana ay dhabar kala baahi doonaan oo odhan doonaan hore u shaqeeya taasaan aaminsanahay waana sida ay wax ku dhici doonaan berri insha allah xildhibaan cali haddii berito xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya go-aan ka dhana xukuumaddu ay qaataan ma dhici kartaa wax ka duwan wixii xukuumadda markaasi ay soo jedisay maya anigu laa qadar allah insha allahu maba dhacaysaba waxa weeye anu maba aaminsani inay go-aan xukuumadda ka duwan qaadanayaan maxaa yeelay dadka baarlamaanka waan ku dhex jirnaa waanan aragnaa sida wax u socdaanna waan la soconnaa inta yar hawshan dhacday ee xukuumadda lagu eedeynaya wax uga dhex jiraanna waa garanaynaa intay la egyihiin iyo faraha ay dhan yihiinna waa garanaynaa marka waxa weeye ayaga horaan ula hadalnay oo waxa weeye iimaanka allah ina geliyaan yidhi shalaad xil haysiin berrina waa helaysaane sabra oo dadka la shaqeeyaan leenahay laakiin baarlamaanku ma qaadanayo wax ka duwan waxa xukuumaddu ay ku dhaqaaqday insha allahu tacaala taasaana u fadhinaa waana sugaynaa saasayna u dhacaysaa haddii alla yidhaahdo maxaa yeelay horumarka socda iyo shaqada socota wax indhaha laga qarsan karo maaha haddaad fiiriso corruptionkii iyo dhaqaalihii iyo meeshuu marayo haddaad fiiriso shaqaalihii iyo ummaddii mushaarkii sida loo siinayo haddaad fiiriso dhallinyarada shaqada la siiyey hal goobaa dhacday in kun dhallinyaraha oo magaalada muqdisho shaqo la siiyo oo mushaarkuba ha iska yihahda hadduu rabo laakiin shaqo la siiyo weli wax dhacay maaha marka horumarkaas socda stadio conis aad arkaysay oo 12 habeennimo laga soo rawaxayo dabaaldeg waa beri markay koob ka qaaday ilaa iyo 2 habeennimay dabaaldegayeen ay farxayeen marka waxyaabaha socda oo ummadda hiddiilada gelinayo ay ku faraxsan yihiin baarlamaanka ugama fadhino inay ay checkpoint ay u dhigaan oo ay istaajiyaan kama sugayn inay hore u wadaan rajaynayna insha Allah cali saka cabsi la xiriirta xukuumadda in la rido ayaa jirta oo dadka qaar ay ku sheegayaan in arinta qalbi dhagax jawaab ma mudan yahay in jawaab xukuumadda laga dhigo in kalsooniga lagala noqdo ma dhici kartaa birta arintaas ma dhici karto ma aaminsani mana dhici karto dadka qaba arrinkaasna waa dadaan xogta ogeynaan isleeyahay waxa weeye annaga xogtaan ognahay arrinka qalbi dhagax ee xukuumadda lagu haysto iyo madaxtooyada waxaan isleeyahay waa la buunbuuniyey shacabka ama siyaasiyiinta danta leh iyo ciddii la idmaday ee xukuumaddii iyo madaxtooyada ahaydna iyagaa maslaxada dadkan owle u ah iyagaana og marka waxa weeye waad og tahay oo dowladaha adduunka ka jira maraykanaa ugu weyn maraykana maanta sida trump oo wax u wado maraykan oo dhan dadka reer maraykan oo dhan raalli kama ah haddana saasay tahay waa la ayisan yahay waana lala socdaa marka waxa weeye shacabka intee sida xukuumadda u shaqaynayso ogol markii la yidhaahdo percentagekan ka garan karnaa annagu in xukuumaddani hore u socoto la rabo la jecel yahay horumarkeeda la arkayo shacabka say ula hadlayso iyo say u dhex joogtay iyo say ula kulmayso iyo siday u qancinaysana inay shacabkii ay raalli ka yihiin waxyaabihii turxaanahoo yimaadana waxaan u baahannahay shacabkuna u baahaya annaguna u baahannahay in laga gaaro xal hoose oo aan ummadda niyadda laga jebin inaan diyaar u nahay cali waxaa jirta in xildhibaano fara badan oo rag iyo dumar leh oo golaha shacabka ka tirsan ay arrintan si weyn ay markaa ugu gadadsan yihiin oo ay xukuumaddu yidhaahdeen waan kala xisaabtamaynaa oo ay ku tilmaameen in khayaano qaran ay gashay markii la dhiibay ninkan qalbi dhagaxa ee sargaalka onlf marka miyaan markaa dhihi karnaa berito wax ka duwan
waxa aad hadda sheegaysa ayaa meesha ka soo bixi kara. taas wataan hore kaagala hadlay waxaa weeye laa qadar allahu insha allah mana qadar ilaahayna ma qadarayo shacabka soomaaliyeedna waxaa weeye baryadooda iyo rabitaankooda iyo siday xukuumaddooda u taageersan yihiin ay ula dhacsan yihiin ilaahay ma insha allahu ma dayacayo. horaan u sheegayo dad wax gooniya ka leh waxaan oo wax gooniya ka dhex raadinayo awalba wax ka rabay meelaha inay ka soo baxaan way jiraan laakiin waa laga badan yahay waana laga cod badan yahay waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala arrinkaasi inay saa u dhacaynin aad sheegayso ay u dhacayso berri farxad iyo raynrayn shacabka soomaaliyeed xukuumaddoodii u shaqaynaysa oo hore u socota in baarlamaanka laga soo dareeri doonaan rajaynayaa saasayna u dhacaysaa insha allahu tacaala. maxaad ku difaacaysaa in baarlamaanka ay go-aan qaataan iyo inaysan qaadan adigoo ka siyaasi ahaan oo hadda aadan ka tirsanayn baarlamaanka soomaaliya maxay tahay waxyaabaha kuu uraya aada u difaacaysaa? wallaahi okay waxa weeye aniga waxaa difaaca iga keenayaa wax kale maaha anu hadda waa og tahay baarlamaanna kuma jiro xukuumadna kuma jiro xil kalena dawladda uma hayo cidda hadda dawladdii waa baarlamaanka cidda dawladdii waa xukuumadda waxa keliyaho aniga aan ku difaacaya waxa weeye sida wax u socdaan aan qancisay oon ka helay oo hadda waxyaabahan ka soo dhawaajiyey ka mid yihiin saacaddaas aan hadda wada hadlayno aniga adiga yaa waddadii maka mukarramaya intii la midkaa laga adeeganaya oo ummaddii socota oo gawaarida aragta socota oo annagu aan halkaa fadhinaa oo soconaynaa waad og tahayo wixii dhibki jiray oo dhan waa soo yaryaraaday mar hadduu soo yaryaraaday oo hore loo socdo oo ummaddii qanacsan tahay oo dhallinyaradii la qancinayo oo hore loo socdo waxaan diidanahay oo keliya waxa weeye wixii horeba loo sheegi jiray baarlamaan oo xaal qaado iyo waxyaabihii la midka ahaa inay dib noogu soo noqdaan aan diidanahay inaan hore u soconnaan rabnaa wax wanaagsan oo hore u socday oo meesha maanta aan joogno ka tallaabsaday inaan dhaxalnaan rabnaa annagaa rajo ka leh annagaa rabna inaan madax ka noqono waddankan inaan wax wanaagsan dhaxalnaan rabnaa midda kale waxa weeye dadka soomaaliyeed iyo baarlamanka soomaaliyeedba waxaa la rabaa inay dib u milacsadaan shalay markay ay madaxweynaha dooranayeen 6 bilood ka hor meeshii magaalada muqdisho ay joogtay iyo soomaaliya iyo maanta meesha magaalada muqdisho joogto oo laga fekeray oo aad ogtahay si haddii ilaahay kuu royahay ammaankii loo sugay aad ogtahay sida dhaqaale loo soo saaray oo maaragtay corruptionkii iyo wixii jaabka la gashan jiray loola diriray aad ogtahay shaqaalihii dawladda in mushaarkoodii 28 ay qaadanayaan aad ogtahay ciidankii qaranka oo soomaaliyeed nooc walba uu yahay inuu wixiisii yaraa uu helayo aad ogtahay in la rabo in loo tilaabsado hadda oo qorshihii uu socdo in soomaaliya o dhan laga xoreeyo inta nabaddiidka dawladdiidka magaaladii muqdisho waddooyinkeedii haddii ilaahay kuu royahay dhismo ku socdo oo hadda aad ogtahay 3 waddo in la dhagax dhigo shaqadii ay socoto oo markii laga soo baxana ummaddii soomaaliyeed xataa ay garatay inay dhaqaalaheeda ku dhisan karto waddankeeda ay ku dhisan karto oo hididiilo u muuqato oo lasoo wada laabtay oo hadda qurba joogta iyo dadka kale aada kala garanaynin ay isla egyihiin marka waxa weeye anugu taageerada aan taageeraya waa intaas waxa aan rabo oo keliyana waxa weeye inaan ka dhaxlo siyaasiyiinta maanta xilka haysa meel wanaagsan oo ay gaarsiiyeen inaan ka dhaxlo berrina markaan imaado saas oo kale la ila shaqeeyaan intaas waa taageeradeedu wax kaloo gooriyan ku qabo ma leh wagaag aad buu maasanya kaasina wuxuu ahaa siyaasiga cali maxamuud faarax cali seeko oo horey ugu soo mid noqday baarlamaanka soomaaliya haddana ah siyaasi ku sugan magaalada muqdisho oo ila falanqaynayay arrinka ku aadan berito baarlamaanka soomaaliya oo ka shiraya arrinta sargaalka oo nalelaf ee cabdikariin qalbi dhagax barnaamijka dabagalka wararka ayaad weli la socotaan. waagaag qaybihii dhexe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. shir looga tashanayay dib u eegista socdaalka iyo jinsiyadaha dalka soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana shirkaasi la sheegay in lagu yeelayo sharciga dib u eegisna lagu sameynayo socdaalka iyo jinsiyadaha dalka soomaaliya waxaa ka qayb galay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya xubno ka socday iyo qaybaha bulshada. shirkaasina waxaa soo qabanqaabisay laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka soomaaliya.
wasiiro ayaa halkaasi ka hadlay oo ka mid ahaayeen wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed waxaana ay halkaasi ka hadleen qaabka loo dejinayo sharcigan dib u eegista lagu sameynayo socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Soomaaliya. waxaan maanta aad iyo farxad gelinaysaa inaan ka soo qayb galo ay dadaalka ay muujiyeen halkan ku soo bandhigaan waa midaan hordhac waxay sidoo kale say hore u sheegan ay tegi doonaan gobolada dalka oo dhan ama maamul goboleedyada ay wada tegi doonaan waxayna u tagayaan inay fikirkooda ay soo dhageystaan dalka federaal u qaatay marka waxaa loo baahan yahay wax kastoo la sameynaya in la waafajiyo dowlad ama maamul goboleedyada dalka ka jiro saad ogsoon tihiinna sharciga ama jinsiyada socdaalka jinsiyada ama hay'adda socdaalka jinsiyada wuxuu ka wada dhexeeya federaalka arrimaha dibadda sidoo kale gaashaandhiga waa waxa kaliya ay federaalka wada sameeyeen marka sidaas darteed ku bogaadina inay tagaan ayna xog ka keenaan ama wixii fikir ay ka keenaan in saan ogsoonahay sharcigaana waxaa la aasaasay ama hadda dadkii ugu horreeyay meesha ay ka sheegeen 1966 marka waxaad dareemi kartaan in adduunyada isbedel ka dhacay in waxyaalo isbedeleen oo u baahan sharciga in dib habeen lagu sameeyo marka waa ku mahadsiin dadaalku ay ku jiraan anoo ku bogaadinaya sidoo kale waxaan ogsoonahay in Soomaaliya ay leedahay xuduud dheer bariga iyo badda ah marka waxaa loo baahan yahay si loo hubiyo dadka soo galaya wixii ka baxayo in la helo sharci lagu kala hago marka haddii sharci jirin adduunyada lama socon karno dadkana ma kormeeli karno marka sharci saas uu muhiim noogu yahay sidoo kale waxaad ogaataan waxaa jiro argagixiso ama dad badan oo ajnabi ah oo wadanka sii galaya ama ka baxayo marka waxaa muhiim sidoo kale in loo helo sharci iyo xakameyn in loo helo marka waxaan rabaa waqtiga gaaban dartiisa dadka halkan isugu yimaado oo ka wada socdo wasaaradaha federaalka inay fikirkooda hadda ay maanta ka dhiibtaan wixii input ay ku dari karaan ay ku daraan si hore loo socdo loola kulmo maamul goboleedyada maanta waxaan idinka fadhinaa iyo beritabo wixii inaad ku dartaan wasaaradaha waxaan jeclaan lahay inay inta maqan ama wasaaradii maanta halkan ka dhiman inay berita ka soo qayb galaan ayna muhiimadda saaraan sharcigan sharciga ama dib u eegista socdaalka hadda waxa loo fadhiyo ama maanta u fadhino waa socdaalka kaliya marka saas in loo ogaado waa jeclaan lahaa marka waxaan leeyahay aan rabaa hoosteena ka xariiqo in la xaqiijiyo socdaalka ama sharcigan uu yahay mid qabyo ah markuu soo dhameystirmo aan geyn doono hadduu ilaahay yiraahdo golaha wasiirada kadibna aan geyn doono golaha baarlamaanka suu noqdo sharci jiro marka aad ay hawshan inoo khusaysaa burburka waddanka ka dhacay haddii laga dhex raadiyo meelaha laga fiirin karo in ay ku jiri karto maaragtay fursad inay ku dhex jiri karto waxaa ka mid ah in sharciyadu waddanku yaalay iyo sidii waddanku u shaqaynayay iyo wax kastoo socday fursad loo haysto in dib loo fiiriyo oo la isweydiiyo sidaan hadda ma naanfacdaa mise si cusub ayaan ka dhiganaa oo nooga habboon nolosheenna maanta marka taas ayaa keentay in maanta fursad ay tahay in la yiraahdo la isweydiiyo qaabka waddankeenu u shaqaynaya ama jinsiyadda u bixinayay ama maaragtay baasaboorka u bixinayay ama dalka shuruudaha lagu soo galayay oo dadka ajnabiga ah noo imaanaya waddan ka shaqaynaya ama ku noolaanaya qaabka u imaanayeen ma la dhihi karaa maaragtay waa qaab aan ku qanacsannahay mise waxbaan ka bedelnaa marka waa mas-uuliyad aad weyn markii sidaa loo fiiriyo waxaan waxay isugu soo biyo shubanayaan yaa Soomaali ah in laga jawaabo waxaan u maleynayaa maalmo dhaweyd su'aal taagneyd ayay ka mid ahayd markii in Soomaalidu isku afgarato oo ay isku raacdo Soomaaliya ah waa qodob muhiim ah haddaad fiiriso dadkeenu hadda dhinaca kale oo fursadda laga fiirin karo burburka dhacay waxaa ka mid ah barakacii dalkan ka dhacay wuxuu keenay dadku inay khibrad
waxyaabaha ay khibradda xoogga u leeyihiin dadka dibadda u baxay iyo kuwa jooga gudahaba ay ka mid tahay socdaalka iyo shuruudaha la xiriira iyo sharciyada ku saabsan iyo dokumentiyada ku saabsan marka waddankeena haddaad barbar dhigto waddamada qaarkood qofku inuu magacaas uu sheeganayo uu leeyahay qofka Soomaaliga ah maxamed markuu ku yiraahdo in maxamed la yiraahdo oo maxamuud la dhihin oo cabdullaahi la dhihin oo yuusuf la dhihin maxaa ku cadeynaya inuu san bari magac kale la imaan karin inuu Soomaaliya waa badu jeeda ka soo qabo inaad qiyaastay inuu Soomaaliya inuu laakiin magac uu sheeganayo uu yahay maxaa ku cadeynaya inuu san magac kale ahayn maxaa cadeynaya maxaa diiday ad ayuu adagtay hadda marxaladda lagu jiro hadii loo fiiriyo su'aalaha kale oo jira waxa weeye haddaad fiiriso dibadda meelaha qaarkood qofku magaciisa baan yar kama sheegi karo xataa sidoo uu qoran yahay wax yar kama bedeli karo magacayga garaad oo Soomaaliya hadda xafiis walba soo rabo u qoraa qaar double A u qora qaar hal A u qora qaar GRA u qora sida anigu aan u qortay inay ii respect gareeyaan ma ogola sababta waddankeena magac ma fadhiyo maxamuud qofka raba W qoraya qofka raba hal U ayuu qoraya ama hal U qofka raba laba U ayuu qoraya laba magac oo kala duwan way haday siyaabo kala duwan qorayeen magaca John la yiraahdo ja iyo o iyo na dhaqamada qaar oo qora igar halaala hergbirahay qaar koodna waxay u qoraan ja iyo o iyo ha iyo na siyaabo kala qaar kala u qora marka magacyo kala duwan ay noqonayaan waxa soo dhamay marka magaceeni ma fadhiyo qoraalkiisi da'da qofku inuu baan ka sheegi karo ma waxyaabaha qofka lagu gartay kamid tahay haddana da'deena wad ka warqabtaa qof waliba meesha rabo ku dhashay qof waliba waqtigu rabo u dhashay waqtiga marka uu doonayo inuu sheegto dad badan waxba kuma aha goobta qofku ku dhashay in la cadeyn karo aad baa mahadsantahay in la cadeyn karo wadamada qaarkood aan arkay xataa qofku been kama sheegi karo meesha uu degan yahay ama deganaan jiray xataa 10 sano u dambeysay meelihii uu degay been kama sheegi karo anaguna weli address ma balahin marka su'aalo badan ayaa meeshaas ku jira marka dhinac marka laga fiiriyo waa fursad in maanta la isweydiin karo sidee anaga dokumentigeena si caalamku u aqbalo oo baasaboorkeena wadamada qaar kama shaqeeya hadeer wadamo badan uu ka shaqeeya caalamka badankiisa uu ka shaqeeya qaar kalena waa sii aqbalayaan laakiin su'aalahan hor yaalla inaan ka jawaabi karno oo qofka baasaboorkan sita inuu asagu qofkan yahay uu sheeganayo magacaan uu yahay wixii kale oo cadeyn ah oo baasaboorka ka baxsan oo markii baasaboorka la bixinayo lagu xaqiijiyay inuu qofkan yahay in la ogaan karo ajnabiga waddankeena imaanaya in la ogaan karo magacaan uu sheeganayo inuu yahay hadda ka hor inuusan imaan inay runtii tahay waddanka uusan dambi ka gelin ama laga eriyin marka waa hawl aad culus sida loo sheegayna u taala Soomaalida oo dhan isku afgartaan waa ku bogaadinaya hay'adda socdaalka iyo wasaaradda runtii ra'yigan aad u wanaagsan ee ah in wada tashi laga galo kuwaasina waxay ahaayeen wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka hadlayay shirka wada tashiga ee lagaga hadlayo socdaalka dalka Soomaaliya inta dabadeed waxa wariyahayga Maxamed Cabdinaasir Ayaale oo wareystay taliyaha hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha dalka Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Kofi waxaana ugu horeyn oo weydiiyay muhiimadda shirkan uu leeyahay waa mahadsantahay Faisal shirkan wuxuu ahaa shir la tashi ah oo ku saabsan dib u eegis lagu sameyn doono sharciga socdaalka Soomaaliya hay'addu waxay ku shaqeysaa dhowr sharci oo sharciga socdaalka iyo sharciga jinsiyadda kani wuxuu ku saabsan yahay dib u eegis lagu sameyn doono sharciga socdaalka Soomaaliya oo ahaa kii la sameeyay 66 oo xeer ahaa waxaana kalifay in aan hadda shirarkaani qabano la tashiyadan sharcigaas oo ahay mid aad iyo aad waqti badan ay ka soo wareegtay una baahan in la haleeshiyo qaab dhismeedka dawladda hadda la haysto
iyo saameynta teknolojiyaddu ay ku leedahay socdaalka adduunka, heshiisyada iyo sharciyada adduunka uu galay dhinaca socdaalka la xiriira, iyo sidoo kaleeto baahida socdaalka oo Soomaaliya aad iyo aad ugu badan, xuduudaheena oo aad u ballaaran oo xakameyn u baahan, iyo sidoo kaleeto xaaladaha amni ee adduunka hadda lasoo gudboonaatay. waxaasoo dhan ayaa laga maarmaan ah sharcigeena socdaalka in dib loo fiiriyo si loo haleeshiiyo xaaladahaas haddaan ka hadlayo oo u baahan in la xakameeyo lana maareeyo. wax kasta ood qabanaysid oo socdaalka la xiriirana waxay u baahan yihiin sharci. haddaan sharci la helinna wax tilaabo oo la qaadi karo may jirto. marka arrimahaas ayaa kalifay in la tashiyadan la bilaabo. waxaana ka qayb geli doonaa hay-adaha dowladda, sidoo kaleeto waxay tegi doonaan khubaradu gobolada oo ay la tashiyo la samayn doonaan maamul goboleedyada iyo sidoo kaleeto bulshada qaybaheeda kala duwan. kan maanta wuxuu ku saabsanaa la tashiyo aan la sameynaynay hay-adaha dowladda, gaar ahaan qaybaha federaalka ah oo wasaarad kastaba ay ka socdeen laba khabiir oo matalaysa wasaaradaha inta badan ka socday. la tashiyadu way socon doonaan haddii la yiraahdo ilaa aan ka helno sharci socdaal oo la jaan qaadi karaa xaaladaha adduunku hadda uu ku jiro. heerar intee leeg ayuu soo maray shirkan inuu maanta furmo? wuxuu ka soo bilowday markii horeeto in la diyaariyo qaab howleedka in la diyaariyo. khubaro ayaan u shaqaalaysiinay hawshaas inay qabtaan. waxay soo diyaariyeen qaab howleedkii, waxaanan la tashadii ay kusoo bilaabeen saraakiisha hadda ku shaqaysa sharcigan hay-adda ka tirsan iyo saraakiishii hore uga shaqayn jirtay hay-addan iyo qaybaha socdaalka ka shaqayn jirtay. la tashigaasi wuu soo dhammaaday si wanaagsan uuna ku dhacay. talooyin badan ayay kusoo biiriyeen. kan maantana waa heerka wasaaradaha federaalka oo iyagana maanta la tashiya ka qayb galaya. waxaa ku xigi doonaa bulshada qaybaheeda kaleeto iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada ayaa ku xigi doona haddii la yiraahdo. maxaa kusoo beegay xilligan inuu shirkan aad qabataan? waxaa kusoo beegay waxaan waqtigeeda unbaa la sugayay oo aan isleenahay waa waqtiga ugu habboon oo hadda shaqadaas iyada ah la qaban karo. dowladduna ay aad iyo aad ugu mashquulsan tahay in sharciyada dalka dib u hagaajin lagu sameeyo oo la hirgeliyo. qaar badan oo waxaa jira sharciyada dalka miisaska ku hoos jira oo aan weli la dhaqan gelin. marka fursad fiican oo ay abuureen dowladda hadda jirta ayaa keenaysa inaan ku dhiirano oo ay diyaar u yihiin in dowladnimada ay saldhigato oo dalkana sharciyo ay ka shaqeeyaan. sidoo kaleeto baahida kalena way jirtay oo ahaa sharcigaani inuusan waqtiga la jaan qaadi karin hadda lagu jiro. waxaan uga jeedaa inuusan xaaladaha hadda soo kordhay u baahan yahay in lagu sameeyo dib u eegis lagu sameeyo. marka dowladda hadda joogta iyo dadaalka ay wado xaaladda lagu jiro iyo innaga ay tahay tani waajibkeena ayaa keenayso inaan xilligan kusoo aadino. dadka khubarada ah ee ka qayb qaadanaya shirkan wada tashiga ah maxay yihiin? khubaradu waa laba qayb. waxaa waaye dadka sharciga gacanta ku haya oo hay-addu u xil saartay iyo dadka kaleeto khubarada ah ee ka socda wasaaradaha ayay ka kooban yihiin. dadka ka doodi doona maanta haddii la yiraahdo ilaa 2 beri ugu soo aadan. marka dhinacyada kale la tagana qaybaha bulshadana sidoo kaleeto waxaa ka qayb geli doona dad saameyn ku leh bulshada aad iyo aadna ula socda xaaladaha adduunka ka jira iyo sidoo kaleeto duruufaha Soomaalidu ay ku sugan tahay. marka waxaa targetku inuu yahay dad kusoo kordhin kara sharcigan aragtiyo fiican oo hagaagsan ku kordhin kara ayaa noo ah bartilmaameed. maamulada dalka ka jira door intee leeg ayay ku leeyihiin wada tashigan? maamul goboleedyada dalka ka jira dhammaantood waa la tegi doonaa oo hadda kani markuu dhammaado dadka khubarada ee gacanta ku haya sharcigan diyaarintiisa waxay tegi doonaan maamul goboleedyada iyagoo la tashiyo la samayn doonaa hay-adaha ama wasaaradaha maamul goboleedyadu ay ka kooban yihiin. qaybaha muhiimka ee la xiriira sharcigan socdaalka iyo sidoo kaleeto bulshada ku nool maamul goboleedyada
iyadana wadatashi ayaa lala samayn doonaa oo ilaa intaa lasoo marana sharcigu diyaar garowgaas unbuu ku jiri doonaa haddii aan la yidhaahdo. baasaboorkeena adduunka hadda heer intee leg ayuu ka gaarsiisan yahay? runtii baasaboorka burburkii ayaa kalifay in shaki laga qaado. waxaa ogsoon tahay in laga qaadan jiray si sharci darro ah looga iibsan jiray suuqyada. Soomaaliya 2007 waxay soo samaysatay baasaboor electroniga, waxayna ka mid ah wadamadii ugu horreeyay ee baasaboorada electroniga samaystay Afrika ayay Soomaaliya ka mid ahayd. laga bilaabo 2007 ilaa hadda waxaa soo kordhaysay sumcadda uu yeelanayo baasaboorkeenu iyo kalsoonida lagu qabi karo, maadaama dowladda Soomaaliya aad uga shaqaysay securitygiisa iyo habbixintiisa in la hagaajiyo oo inaguna aad aan uga shaqaynay. adduunkana aan u sharaxno meel kasta aan geynay baasaboorka iyo waxa sida uu yahay baasaboor lagu kalsoonaan karo iyo in ay jirto dowlad ka mas'uul ah oo aysan maanta wax suuq laga qaadanayo uusan ahayn. taasna waxay keentay in kalsoonidii lagu qabay dib u soo noqoto. dalal badan oo diiday markii hore in dalkooda lagu galo ayaa hadda ogol in dalalkooda lagu tago dalka Yurub u badan. qaaradda Asia iyo Afrika iyagu markastaba baasaboor Soomaaliyeed waa aqoonsanaayeen oo xitaa kii suuqa laga iibinayay markaa way aqoonsanaayeen. laakiin waxa shakiga muujiyay waxay ahayd qaaradahaas America iyo Yurub ay ahayd. iyagana wada hadal kadib qaarkoodna waa soo jawaabeen, qaarna hadda ayaan ka sugaynaa inay ku dhawaaqaan in ay dib ugu soo celiyeen kalsoonidii baasaboorka Soomaaliya ay ku qabeen oo taariikhdii hore ku lahaa. hay-addan aad adigu maamusho guud ahaan xafiisyadeeda ma gaarsiiseen gobolada dalka? waa intii la gaari karay oo amnigu uu noo saamaxay inaan tagno waa geynay. hay-addani adeegyada ay bixiso waxaa muhiim u ah inuu jiro meesha amni, in dowlad hoose ay shaqaynayso, inuu booliis shaqaynayo. taasaa asaas u ah. meel walba oo intaas laga helay waa geynay, wayna ka shaqeeyaan hadda. meel walba oo laga heli doonana waa geynaynaa haddii aan la yidhaahdo. marba haddii nidaam iyo maamul iyo booliis uu ka shaqaynayo waa ku qasbanaa inaan geyno meeshay doonta ha noqoto, tuulooyinka iyo degmooyinka iyo deegaanada iyo intaba waa tegi doonaa haddii aan la yidhaahdo. qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaan ku guda jirnaa daawadayaal. madaxweynaha Somalilan Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa maanta khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan oo u jeediyey qaybaha kala duwan ee warbaahinta. waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka ee Somalilan iyo xisbigiisa talada haya ee kulmiye. madaxweynaha Somalilan ayaa dhinacyo badan ku soo hadal qaaday khudbadaasi. qaar ka mid ah ereydii madaxweynaha halka uu ka jeediyena hadaladiisa waxaa ka mid ah: waxaa la mahadiyaa in nabadda, xasiloonida, deganaanshaha iyo kala dambeynta shacabka Jamhuuriyadda Somaliland maanta ku noolaanayaan aanay dowlad ilmaado ahayn, dalkeenuna aynanu hormarayn, balse ay tahay mid ku timid dagaalka, kartida iyo isku kalsoonida shacabka Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale dowladnimada, dimuqraadiyadda, koraca dhaqaale iyo horumarka bulshada gaarnay maaha mid inooga soo waariday badan shisheeye, balse waa mid hore abuurkeeda iyo horumarinaya aan inaga la nimid. midaanan la marayay shaki kuma jiro waaladeeda lagasi yahay in madaxweynaadkii koowaad ee xisbiga kulmiye waxaan ka qabtay horumarka iyo dhismaha dalka. waxaan suurtagelinay horumarka ballaaran ee dhinacyo badan oo la taaban karo. isbeddelkan wuxuu ka tarjumayaa tallaaqaadyadii uu xisbiga kulmiye la galay bulshada xilligii uu jiray ololaha doorashooyinka, xilligii ku jiray ololaha doorashooyinka. sidoo kale xukuumadda galwareerka ka ahay waxaa kor u qaaday isku kalsoonida, waxwaraqabsiga, rajada, filashada iyo waddiimada shacbiyeynaha Jamhuuriyadda Somaliland dowladda dowladda.
horumarka waxqabadka xukuumadda kulmiye dalka ku hirgelisay muddaxolaadkii koowaad waxaa laga doohan karaa dhammaan gobollada dalkooda mintuuro degmo gobol ilaa caasimadda dhawaana waxaa shacabka soomaaliya u soo bandhigi doonaa dhamaystiran iyo diiwaan koodaysa iyo diiwaan koodada koobsanaysa dhammaan waxqabadkii xukuumadda kulmiye muddaday kale ee dalka haysay mudaniyo marweeye sanadkii 2023 May aniga xubno kooban waxaa la aragnay isla markaana dowladda ugu taagnay jidibada u taagnay xisbiga kulmiye oo ah bahaweynta iyo bulshada Soomaaliya ka midoobay xisbiga kulmiye wuxuu taagan yahay midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliya ujeedadiisa ugu weyn ee haysanayaan waxay baabahay tilmaamaha ugu ah dhismaha iyo midabooyinkaada qaran dimuqraadiya oo la hanaan iyo habo dowladnimo oo ay mahadiyaan muwaadiniintiisa midowaya marweyne taniyo xilligii uu dalka cagta saaray labada dowladeedba xisbi kulmiye wuxuu kaalin mid oo muuqato ku lahaa geedi socodka doorashooyinka wuxuu ka soo qayb qaatay dhammaan doorashooyinkii dalka ka qarsoomay iyo dowladaha hoose madaxtooyada iyo golaha wakiilada sida taariikhdu qorayso xisbi kulmiye wuxuu soo meeray geerida yowmi waxtiyaara oo gobol xaadirey marxaladaha ay maanta dowladda ku yahay xisbiga kulmiye oo ah maanta xisbi xaakim wuxuu talada dalka ku hartay oo soo maray jid dheer oo uu sahal ugu soo dhigtay sabir dulqaad tanaasul hidaaya talawadaad iyo tawfiiq xisbiga kulmiye waa xisbigii aan asaasay waana xisbigii madaxweynaha lagu doortay sidaa darteed si uu barnaamijkii waxqabadkii u dhamaystirnay waxaan maanta la hawlgeli doonaa sidii xisbigan mahad labaad ugu guuraysan lahaa dalka mudanayaal marweyne waxaan jeclahay halkan sida samee uga mahad noqoto dabaasha tirada badan rag iyo dumar oo mandowga asaaska laa maanta ilaaga la-aanta hiiliyahooda u hareeya taagnaa xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa si weyn ugu mahad celinayaa madaxda xisbiga hogaanka guddiga fulinta xubnaha golaha dhexe iyo haldoorka aan odaga u ahaa oo habeen iyo maalinta qalabka iyo gaashaanka iiga ahaa hagaag daawadayaal intaa ayaa ku joojinaya barnaamijkii dabagalka wararka oo caawa halkan aan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixasiis ibraahim axmed oke dhinaca farsamada waxaa iga taageerayay guleed cabdisalaad qaarey iyo axmed cali bare xafaara tanii kulantanba intaan dib u kulmi doono barnaamij ka la mid ah nabadgelyo.